الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إلهي baa weyn naga wada weyn awoodiisoo dhan aan ku joognaa na abuuray bini aadam naga dhigay na karaameeyey Soomaali naga dhimay islaam naga dhigay ilaahaas weyn inaan u mahad celino way aad iyo aad baan idinkana ku mahad celinaynaa taliyaha ayaa amaantiin iyo taliyihii qaybta ayaa amaan sheegay ururkiinaan urur taariikh horena leh taariikh cusubna leh baatiin taariikhdii hore waxay ahayd oo la sheegay gobolka Gado oo loo maara waayay xuduudiis oo aniga mara Nairobi tagay intaasoo Soomaalida meeshaas way idinku faanayeen xitaa Soomaalida xaggaas jirta oo dalkaas kale ku hoos nool way idinku faanayeen dad Soomaali ah oo xalaal ah oo wadaniin ah noo yimid bay yiraahdeen meeshaana iyadoo wareersan ayay dajiyeen waana la hubaa waana loogahay rikoor fiican rikoorkaas weyn halkaas waa idin yaala rikoorka cusubna oo sanadkii hore Septemberna eeler baan hadda ku soo dhageysanay dadkeedii waan ka soo dhageysanay taliyaashii iyo odayaashii rikoor fiican baa halkaasna idin yaalo geesinimo iyo butulaada 80 iyo intaas oo khawaarijta in meeshaas la dhigay subax ay soo haweysteen oo ay khatar ahaan lahayd rogaal celintoodaas dambe jiritaanka ciidanka ayaa ku xirnaa iyo in la aamino ciidanka xooga dalka karaamadii maalinkaas dagaalkii guushii soo bilaabatayna isdaba joog bay noqotay waa tii shabeellada hoose buundooyinkii lagu xoreeyay mubaarak lagu tago aan la tagin ciidanku uusan degin lagu degan yahay horeyna loo sii socday oo gunji halkaas dhulkii ay ku jireen oo dhan asaas waxa uu ahaa hakintii la hakiyay ee shabaabku niman qooqay oo kibray oo meeshay galaan ay galantay isku haysteen maalinkaas wixii ka dambeeyay guul daradoodii waa bilaabatay runtii waa maasantiin guul daradaas bilaabatay alxamdulillah way socotaa bishii 9aad bay ahayd 10 bilood meelahaas ka soo wareegtay ama 9 bilood bishii 10aad baan hadda ku jirnaa guul darra saasi u hoobteen nimankii waa sii socdaan waa la'aanayaan waxaan rabnaa meesha aad joogtaanna waxay muujinaysaa rag ma tahay maaha meesha halkaana ciidankii geeska u soo xigay oo caloosha u buuxda ku jiraatiin runtii dadoo ragoo dhan lama keeno ragga lagu aaminay idinkaatiin waa la idinku faanayaa xoogga dalkii ummadda Soomaaliyeed oo idinku faanaysa ummadda Soomaaliyeed waxaad u proof garayseen u cadayseen markay wadaniyad tahayna xuduudahooda inaad u soo xireysaan markay khawaarij la dirirtayna inaad wacdara muujinaysaan meeshaas arabnaa inaan ka sii wadno insha Allah dhufaysyadu waa soo buuxsami doonaan gulufkuna waa bilaaban doonaa al-shabaabna hoobashadii ku bilowdeen bay ku socon doonaan haddii la yiraahdo halkaas aan ka wadno moralkeena iyo ciidan koraan ka dhigno dib u noqosho ma jirto meel kasto sarkaal uu nooga shahiiday iyo askari dib inaan u tagno waa meel kasta oo sarkaal saaxiibkeena oo ciidanka ka tirsanaa ama askari ciidanka ka tirsanaa uu ku shahiiday in dib loo qabto weeye dhulka kale oo sii harayna in laga sii qabto weeye nimankaas arrintaas kulay taliyaha qorshii uu wadaa meel fiican bay maraysaa waxaana rajaynaynaa mar dhow dhufaysyada inaan ugu jiri doonin oo sidii ayaantii 2023 ay u firxadeen iyo labadii bilowgeedii dhamaadkeedii say u firxadeen in nimankaasi ay firxan doonaan is soo dhiibi doonaan ayagoo boqol guuleysaan idin leenahay waxaan la diriraynaa waa cadow diinteenu noo sheegtay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka warramay qofkii la kulma kuwaas khawaarijta la yiraahdo oo ciyaalkaas yarka quraanka aadka u akhrinaya oo salaada aadka u tukanayo masjid halkaas ay madowdahay wajigoodu madow yahay laakiin diintooda iyo salaadooda iyo soonkooda uusan dhaafeen halkaas kalxamaha
nimankaas ninkii la kulmaa hadiluu yidhi ma nabigii qofka weyn baa jira inay soo bixi doonaanna wuu noo sheegay dhowr ayaamood bay soo baxbixeen sanawaad boqolkii sanaba mar baa la yidhaahdaa way soo ifbaxaan nimankaas khawaarijta cid kale ma dilaan islaamkay dilaan ma taabanayaan hadday qof kale qabtaan oo diin kale qabta lacag bay weydiisanayaan qof islaam hadday qabtana waa gowracayaan hadday qabtaan waa gowracayaan qof diin kale haysta hadday qabtaanna waad aragteen imise qofay sii daayeen imise qofay lacag ku beddesheen laakiin qofka islaamka lacag ku beddelanayaan waxna ku beddelan maayaan waa dilayaan waa niman islaamka lagu salladay oo loo soo diray waay annaga si gaara dalkeenna 20 sano ayay caqabad ku yihiin 20 sano ayay caqabad ku yihiin ciidankeenu wuu soo dhismayey waa soo baxayey waa soo xoogaystay xilligii ugu fiicnaa hadda maraya insha allah waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed eheladeennii beerihii dhulkii beeraha labadii webi oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay isticmaali jireen waa qabsadeen badankoodii waa kuwaas dadka ka soo barakaciyey oo dadkii wax beeri jiray maanta xerooyin qaxooti ay ku jiraan waxaan rabnaa dadkaas in guryahoodii dib loogu celiyo wax soo saarka dalkaanna adduunka hadda waa cidhiidhi buu galay uu meeshiisii ka bilowdo xoogga lagu tashanayana ciidanka weeye ciidankuna ciidanka gorgor weeye kumandoosta oo maaragtay aadka u hubaysan aadka khibradda u leh aadka u guulaystay butuulaadka badan muujiyey guulaystaan leenahay insha allahu tacaala dalka Soomaaliya waa dalka shidaalka qodanaya waa dalka satellaydyada meelaha agtiina ay maaragtay laga diraayo oo Afrika oo dhan ma leh satellite-kan adduunkana kii sideedaad waa adduunka oo dhan buu kii sideedaad ka yahay Afrikana haba sheeginba yacni waa horumar weyn waxaasna waa xoogga iyo ciidankeena iyo ilaaladiisa weeye wiilasheenii dhalinyarada ahaa ayaama kadib sanawaad kadib meeshaas cilmi baaris ka samayn doona dhulkan khayraadkiisa iyo waxa ku jiro dhanna si fudud oo maaragtay aan dhibaato loo marin ayaa lagu ogaanayaa wax kastoo gudihiisa ku jira adduunkana halkaan uu xogta u soo raasanaya dalal badan ayuu shaqooyin ka qaban doonaa oo kareysan doona marka horumarkaas shidaalkiina dee bisha 9 iyo 10 oo hadda soo socota ayaa natiijadiisa ceelkii koowaad la rajaynaya ciidankeenu wax allaali wixii halkaa ka soo baxa waxa lagu qalabayn doonaa ciidanka lagu qalabayn doonaa hub casri ah diyaarado casri ah dabaabaad casri ah ayaa lagu gad doonaa meel kale lama geyn doono sida dhaqaalaha dalka hadda soo gala 70% ciidanka ugu baxo ayay noqonaysaa dhaqaale ka soo galana intiisa ugu badan ciidanka lagu baxsho dawladda sidaas ku maqan meeshaan horaan uga soconayna hadii la yiraahdo guuleystaan leenahay ilaahayna waan guuleynayaa ilaahayna aan ku tiirsanaan salaadahan tukano aan maaragtay soono mararka qaarkood ilaahay gargaarka gacanta ilaahay bay ku jirtaa waxa weeye waman nasru illa min indillaah guusha oo dhan ilaahay gacantiisa ku jirtaa waa guul mid la yiraahdo ilaahayna waxaan uga baryi karnaa dariiqadiisii iyo soonkiisii iyo salaadihiisii markaan gudanno ilaahay waa noo kaalmeynaya ilaahay noogama guuleynayo nimanka khawaarijta marka guuleystaan leeyahay ilaahay aydin dhowro dalkeennana Allah dhowro ciidanka xoogga dalkana Allah dhowro guuleyst